anigoo ka socda shirkadda Telesom waxaanu halkan maanta ku guddoonsiinaynaa ardayad magaceeda la yiraahdo Nimco Maxamed Ibrahim oo ku guuleysatay barnaamijka Arday Kaab oo dhigata dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim Burco inaanu maanta guddoonsiino fiigii shirkaddu ay ugu tala gashay guuleystaha inay ka bixiso waxaa garabkayga taagan Nimco ardayadiya hooyadeed oo waalidkiya iyo maamul xigeenka dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim waxaan leenahay naga guddooma barnaamijka Arday Kaab waa barnaamij laga faa'iiday oo ardada fiiga ay kaga bixiso shirkadda Telesom waxaana ka mid tahay guuleystayaashii labadii arday ku guuleystay nasiibkana uu helay Burco waxaa la Nimco ku soo dhawow adiga iyo maamulkaaga iyo waalidkuba fiiga ay shirkaddu idinka bixisay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom fiiga ay iga bixisay teeram ka mid ah iskuulka shirkadduna waa shirkad faa'iidadeeda aad iyo aad u badan tahay waanay ku mahadsan tahay barnaamijyada shirkaddana waan isticmaalaa si fiican baan ugu xidhanahay aad iyo aadna waan uga mahad celinayaa deeqda fiiga ay iga bixiyeen aad iyo aad bay shirkaddu ugu mahadsan tahay shirkadduna waa shirkad faa'iidadeedu ballaaran tahay oo dhinac kasta oo ardayga aad moodaba inay aad iyo aad ula shaqayso hadday barnaamijyo fara badan oo tahay ardayga qoseeya marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Telesom ee inantayda ka bixisay fiigii iyada ilaahay baa mahad leh iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waana ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inan ardaydina kamid ah ayaa maanta scholarship siiyeen ama jaysad way fiiga ka bixiyaan fiigana waan ka guddoonsanay waana mahadsan yahay aad iyo aad u mahadsantahay shirkaddu haddaanu nahay shirkadda Telesom oo aan ugu wakiil ka ahay waxaa ku guuleystay barnaamijka Arday Kaab oo arday badani ka faa'iideysatay maantana waxaa nasiib u yeeshay arday ka mid ah jaamacadda Alfa oo magaciisa la yiraahdo Shucayb Khadar Cabdillaahi laakiin imika hakiyay jaamacaddii muddo wuxuu markaa Shucayb codsaday inuu ku wareejiyo fiigii arday isaguna dhigta jaamacadda Burco oo ehelkiisa oo magaciisu yahay Mubaarak Xasan Maxamed oo dhinacayga taagan shirkadduna way soo dhaweysay labada arday kii ku guuleystay barnaamijka Arday Kaab ee fiiga laga bixin lahaa iyo kuwa ku wareejiyayba shirkaddu labadaba way soo dhaweysay jaamacadda Burcana waxaan ugu mahadnaqayaa sida ay nooga aqbashay labada arday ee isku soo wareejiyay fiiga waxaan leenahay Shucayb oo ardaygii hore ku guuleystay ku soo dhawoobay shirkadda ku leedahay fiiga laga bixiyay ee adiguna ardayga kale ka sii bixisay anigoo magacaygu yahay Shucayb Khadar Cabdillaahi oo ka tirsan jaamacadda Alfa University oo muddo hakiyay jaamacaddii howlaha ka family-ga daraadeed waxaan ku guuleystay barnaamijka ay Telesom bixiso abaalmarinta Arday Kaab marka waxa laga bixiyay hal semester oo ka tirsan jaamacadda ay shirkaddu iga bixisay halkii semester maadaama aan anagu jaamacad dhiganin waxaan rugnay waan isla eegnay waxaan markaa go'aansaday inaan ku wareejiyo walaalkay Mubaarak Xasan Maxamed oo isaguna aan isku iskuulna ka soo baxnay isku family-na nahay inaan ku wareejiyo semesterka jaamacadda ee Telesom iga bixisay anigu halkan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa walaalkay Shucayb Khadar Cabdillaahi oo ku guuleystay barnaamijka shirkadda Telesom ay bixisay Arday Kaab walaalkay markaa isagu igu soo wareejiyay lacagtii markaa isagu ku guuleystay semesterkii maadaama isagu yaraha kiyay jaamacadda isagu dhiganayay marka annagu waan ka guddoomiyey waxaana layga bixiyey lacag dhan markaa $180 shirkadda Telesom waxay ka mid tahay saaxiibada waaweyn ee jaamacadda Burco ay ku dhaadato maantana deeqda waxbarasho ee semesterka ee ardayga kulliyadda ganacsiga dhigta ay siisay aad baan uga mahad celinaynaa insha Allah wada shaqaynteeduna way badan tahay marka waxaan leeyahay Telesom bulshada waynu wada shaqaynaa horumarka shirkaddu waxay ku xiran tahay horumarka jaamacadda marka waxaan leeyahay keep in touch